doodan oo ku saabsaneyd horumarinta afka Soomaaliga ayaa waxaa soo qaban qaabiyey xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed. ugu horreyn dooda waxaa ka hadlay gudoomiyaha xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Guri Xaaji Xasan iyo gudoomiye ku-xigeenka xaruntaasi Siciid Jaamac Cali Qorsheel waxayna hadaladooda isugu jireen soo dhaweyn iyo ka hadalka heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray hirgelinta qoraalka afka Soomaaliga. in dastuurka Soomaaliya ku qoran tahay in af Soomaaligu uu koob yahay waxa xafiisyada dawladda iyo ku shaqeeya af Soomaaliya inuu yahay marka waxaan garanay maanta inaan doodan qabanno oo dadka aan xasuusino goorbaa laga tagay af Soomaaliga marka waxaan garanay sanduuq yar baan wadanay iyo busta yar dadkan halka af Soomaaliga ku bari jirnay ilaa 7 bilood iyo 2 bilood oo markii dambe ahayd tirakoobkii aanu sameynay marka waxa lagu soo tabcay oo ardayda iskuulaadka dhan sanadka la joojiyay oo taariikh ummadda Soomaaliyeed ahayd wax iska yimid ma ahayn waxay Soomaaliya maanta taariikhda kaga jirto. gudoomiyaha jaamacadda ummadda Professor Maxamed Axmed Jimcaale ayaa sheegay in loo baahan yahay kor u qaadista afka Soomaaliga oo haatan meel hoose marayo. marka waxaan jeclaan lahaa horta in lagu baraarugo in afka Soomaaliga lagu daray luqadaha dabar go'aya baraarugaas inuu jiro ayaan mataqaanaa aad iyo aad aan dhihi lahaa lagu baraarugo. afka Soomaaliga waxaa hirgeliyey dowladdii gacanka xaqiiqo waxaa af Soomaaliga lama qoran haddii dowladdii gacanka aysan dhalan lahayn. jenaraal jaamac maxamed qaalib iyo la taliyaha madaxweynaha dhinaca sharciga ayaa ku dheeraaday dadaalka lagu bixiyey qorista iyo akhrinta afka Soomaaliga. wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Faysal Cumar Guleed ayaa u mahad celiyey xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed oo soo diyaarisay doodan looga hadlayo afka Soomaaliga wasaarad ahaanna ay soo dhaweynayaan. laakiin waxaan ku faraxsanahay in ay isku yimaadaan dad Soomaaliyeed oo dhahaya initiative sameynaya oo leh war wixii si hore u sii wadnaa sidoo halka ka sheegay khabiirka muxuu ahaa Jaamac Axmed Qaali oo yiri af Soomaaligu haddii aan la qori lahayn waa dhumi lahayn waa runtiis. gudoomiyaha golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa dooda soo xiray isagoo sheegay in fanaaniinta Soomaaliyeed ay qayb ka ahaayeen hirgelinta afka Soomaaliga xilligii la qorayay ayna sugaan ku cabireen waxaana tusaale u soo qaatay Allah u naxariistay abwaan Cabdi Maxamed Amiin iyo abwaan Cabdulla Raage. afkeennii oo qoran maxaa inoo diiday inaynu iskuuladeenna wax ku barno waa elementaryga iyo intermediate-ka iyo secondary-ga sidii loo sheegay mid walba waa la turjumay buugaagta yacni af Soomaali erey aan lagu fadhiisanin ma jirin. xisaabtaan dhigi jiray oon af Ingiriis ku dhigi jiray oo dhammaantood 73 yacni buuggii af Ingiriiska ku dhignaa oo dhan loo bedelay af Soomaali oo yacni eraya af Soomaali oo aad yacni kolkaad fiirso aad arkayso siday ugu habboon yihiin loo sameeyey. afka Soomaaliga ayaa waxaa ku guuleysatay hirgelintiisa iyo qoristiisaba dowladdii Allah u naxariistay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre iyadoo markaasi la qoray 1972 maxamed nuur maxamed shariifka warbaahinta qaranka Muqdisho.